ayna tahay inaan wada istaagno kulligeen sidaan mar walba uga wada hadalno inay tahay kow in magaaladan aan mideyno horta dadka jooga magaaladan ee 3 milyan ah inay noqdaan qof walba inuu waajibaadkiisa guto oo qof walba walaalkiisa uu la shaqeeyo uuna kala shaqeeyo wanaag dawladana aad la shaqeysaan waxa la wixii wax u dhimaaya dawladnimada iyo horumarka Soomaaliyeed isku meel laga wada istaago oo aan uga wada hormaarno waxaan ognahay maanta Soomaali meesha adduunka ka taaganta iyo magac xumadan haysa waxaan uga gudbi karnaa oo kaliya in aan ka shaqeyno wadajir inaan ka shaqeyno midnimo in magacii naga halaabay ee muddo naga haleysnaa inaan dib u soo celinno walaalayaal waxa ugu horeeya oo aan mar walba ka hadlaynaa waxay tahay dawlad iyo maxaan ku raahdaa nidaam waa waxa adduunka uu ku kala horumaray weeye waxaana koow ka ah oo aan ka hadlaynaa maalin walba ammaanka iyo nabadgelyada iyo in la dhowro nidaamka iyo in loo hoggaansanaado sharciga walaalayaal waxaa noo yaalla hawl culus hawshii hore oo aan soo gudubnay waxa weeye waxbaan ka barannay wax badan naga halaabay waan naqaanaa waxay nooga halaabayna waan naqaanaa waxaa loo baahan yahay hadda inaan ka gudubno aan u gudubno oo aan ka tagno kow wixii qabiila iyo wixii qaybsanaan aan ka tagno oo aan u gudubno midnimo iyo wadajir maanta waa maalin taariikhi ah ilaahay waxaan ka rajaynaynaa sanadka soo socda annagoo sidaan ka wanaagsan waxaan rajaynaynaa ummadda Soomaaliyeed oo sidaan isaga sii dhow waxaan rajaynaynaa magaaladaanu nabad ah waxaan rajaynaynaa Soomaali oo midowda oo wada jirta waxaan ku soo gabagabaynayaa hadalkayga waxaan wada sheegnaa maalin walbaba dadka loo baahan yahay dalkan inay mideeyaan oo u shaqeeyaan waa xoogga dhalinyarada Soomaaliyeed dhalinyaro waxaan leenahay dalkan waxaan soo gaarsiiyay midnimada iyo sharafka ay leedahay dhalinyaradii kale ah maanta waxaa la kaga fadhiyaa inaad ka shaqeysaan midnimada inaad u shaqeysaan dalkiina inaad u halgantaan sidii nabadgelyo iyo ammaan ugu soo celin lahaa inaan la wada dagaalno wax alla Soomaaliya nabad xumadu keenaya ay ugu horeeyaan qolada nabadiidka ah oo xaq jirka ah waxaynu kula dagaalamayaan magacooda waa naqaanaa waa dhalinyaro waxaan uga hortageynaa aan uga adkaanaynaa wadannimo iyo Soomaalinimo yaan uga adkaanaynaa qabiil ugama adkaan karno way ka tageen iyagu qabiil waxay u gudbeen wax caalamka oo dhan ay ku taageerayaan caalamka xaq jirka ay ku taageerayaan waxaan kula dagaali karnaa ama aan uga hortagi karnaa mabda patriotism la yiraahdo mabda wadani la yiraahdo yaan uga hortagi karnaa qabiil loogama hortagi karo waxaa la kaga fadhiyaa dhalinyaro in aad noqotaan dad wadaniyiin ah inaad noqotaan dad patriotic ah oo dalkiina iyo dadkiina u dhinta annaguna aan hormood idinku noqono ama horseed idinku noqono sidaan idinku hogaamin lahayn dawlad wanaagsan dawlad sharci ku dhisan annaguna waxaan ku hogaaminaynaa nidaam iyo sharci iyo cadaalad ayaan ku hogaaminaynaa gabdhaha Soomaaliyeed oo waligood ahaa laf dhabarka dalkan iyo dadkiisa idinkana waxaa la kaga fadhiyaa sidii hooyooyinkiin iyo ayeeyooyinkiin ay u soo halgameen dalkaani inuu noqdo xor dalkaani inuu la tartamo caalamka intiisa kale inaad gabdhaha Soomaaliyeed gabdhuhu inay u istaagaan inay dalkan iyo dawladdiisa garab u noqdaan oo ay gacan siiyaan oo ay la shaqeeyaan
ولا ليال هذا الوحى مطره انت اسوال هلاي مركان وحال ربا هول إلا قبطه وحال دونا يا إنا عن شقينه إنا عن شقنا سان هينه أن أمدنا هو جالسينه هرمر إنا هو جالسينه وما سنتين سومالي هنولاته وحال الله هنبليو سنتكي سكانا إنا هو جارنه عثمات يا هرمر بدن وما سنتين بينا يوابا يدودا ويقبلك فرقلك فقلت ويوابا بقولا بالبرادي بقي ولدن يفتح وليك بالبرادي Bye.